gacmahayga ay gaagnaadeen laakiin waxaan aaminsanahay gacmaha dheerba inay culeysiyeen taana ay naxariis ilaahay ay tahay gacmaha gaagaaban culeys ilaahay iga raba inay batahay waxyaabaha kale caadiga ah dadku waxay isweydiin karaan gacmo yaa u labiso sidoo musqusha ku galaa waxyaabaha walba isweydiin karaan dadkii ku dhaqanaya waa ku qabaysanaya waa ku xaasoonaya waxa ay qabanaysid oo dhan baa kula qabanaya marka alxamdulillah ma aaminsan inay maanta ay wax iga maqan yihiin Maxamed Siciid Guuleed oo ay dadka intooda badan ugu yeeraan gacmo waa 30 jir soo galay xeryaha qaxootiga Dadaab bishii 7 sanada 2008 isagoo ka yimid dhanka Soomaaliya oo ay amni darro ka jirtay waqtiga gacmo lixaadkiisu ma dhamaystirna oo waxa uu naafo ka yahay gacmaha waxaan marka hore weydiiyay in uu ku dhashay curyaannimada iyo in kale curyaannimadan horta ma ku dhalatay oo ma ilaahay baa ku dhaliyay si waxa jirto wax ugu dhacay oo guuriga waa ku dhashay alxamdulillah iyagoo sidaana baan dhashay alxamdulillah maantana waa kaasa waa aniga wax walba ku qabsanahay gacmo ayaa waxbarashadiisa ku bilaabay xerada qaxootiga Dhagaxley isagoo gaaray ilaa fasalka 7 waa kan isagoo iga waramaya heerka waxbarashadiisa iyo caqabadooyinka soo food saara inta uu ku jiro raadinta cilmiga ilaa iyo galaaska 7 ayaan ku gaaray waxbarashada haddana waxaan rajaynayaa in waxbarashada inaan sii wato insha Allah marka qoraalka wax qoritaanka si isku tii qoraalka wax qoritaanka okay waxba iga maqaltana marmarka qaar markii miiska ama iga fogaado markaas ayada ama kursiga oo ugu jiro gaabta markaas xoogaa yara maxaan dareemayaa inaan aan gaaro waa miiskii aan wax ku qorayo buugta marka ayada ay saarnaayeen laakiin qalin hadda hayso sida qofka caadiga gacanta oo qori karta qalin hadda hayso sida qofka caadiga ah wax ugu qoraya sida ay dadku isticmaalaan baan oo isticmaalaa alxamdulillah marka ugu dambeyn class 7 markaad gaartay maxaad u sii weyn weyso waxbarashadaadii oo maxaad u joojisay مسوي تاخدي Soomaalida ama kama saaqadinin ayadoo ay jiraan caqabado kale oo kula kaftan beega tahay waxbarashada aniga hadartan baa iska wataa iyadoo sidaas ay tahay baan iskoolkayga aan dhigtaa suuqayga aan ka xamaasho nolol maalmeedkayga aan ku soo saarto wali waa dhigtaa arrinta iga yaabisay ayaa ah in uu gacmo ii sheegay in shaqadiisu tahay xirfadda darawalnimada kadib waxaan weydiiyay su'aashan shaqadaada caadiga ah waxaad sheegtay inaad tahay darawal oo dadka qaarkood wax la yaab leh ku noqonaysa qof curyaan ah ama waxa curyaan ma tamaan qof gacmihii wax lagu wadaayo curyaanka inuu gaari wado la yaab bay ku noqonaysa sidee dadka uga dhaadhicinaysa arrintaas inay suurtagal tahay walaal qofku marka uu wax qabsanayo horta hadii uu qofku u jiraado aniga gacmo malihiyo waxba ma qabsanayo oo gacmihiiba aad ka saarato cid wax ku qabanaysa ma lahan qofka bini aadankaana waxa uu wax ku qabsado horta maxaa weeye qalbiga ma aha gacmaha waxa uu wax ku qabsado qofka hadii qalbigiisa niyadiisa uu rabo inuu horumar u gaaro oo nin shaqaysta oo noqdo oo shaqaysanayo qofka bini aadanka qaab walba waxa ku shaqeeya marka ma ahan qofka marka sato inuu u yiraahdo anigu qofkaas curyaan baan hay waxba ma qabsan karo taa iyada ma ahan protocol kamid ma ahan iyo wax qabadka qofka bini aadanka marka wax qabadkiisa asaga baadan si kara asagana qof walba waa sida uu iska dhigo marka alxamdulillah waa ku qalsana dadku waxay yiraahdaan qofka ninkan gacmuhu la yahay baabuur ma wada karo uu nala gedinayaa qofka ma sidanayo aniga ma sidaysa marka aniga markaas ku kalsoona aqoonteeda iyo waxbarashadeeda iyo aqoonta aan u sii leeyahay barta iyo markaas aniga marka meelaha aad qatarta la marayo oo kale ta ku xisaabtay waxyaabaha dhibka oo kaaga imaanayo qofka aqoontiisa ku xiran tahay fiirin qofka asaga sida uu yahay asaga qofka waxa fiirsa aqoontiisa iyo waxa uu qabanayo ina marka adiga fiirsa ma aha qofkaas meel buu leeyahay oo marka seeto adiga iska dhamaato qofkan meel buu leeyahay waa curyaan waxba ma qabsan karo oo marka seeto in la hago u baahan yahay taas ma ahan qofku wax oo asagu bahalkay waa waxyaabaha dadka bini aadanka ay dhahaan marka adiga marka waxa fiican in marka ayada adiga qof wax qabsan karo oo wax soo saaran kara ilaa aad tahay oo soo wax walba tan aad isku daydo inaad qaban karto
oo wax barnaamijkaaga oo noqdo hore u kala wax walbeeto dib kala kulantaya wax walbeeto adiga marka waxaan lagu dhibaataan waxba laguma faa'iido marka wax walbeeto marka wax qabad u baahan yahay maskax u baahan yahay marka alxamdulillah sidaas ayadoo ay tahay baan ku xamaashaa wax ku qabsadaa baawarta aan ku wata marka alxamdulillah waxba dhibaato kala ma kulmin ayadoo marka qaar ay afka ay dhahan ninkan waa ogyana waxba ma qaban karo dadka bulshada hayay anigoon dhab aan kala qofsaynin qofku waxa waa la dhageysaa fiiska laga baxa waa laga soo laakiin qofka inaad ku programto atrihada ma ahan qofkaas wuxuu ku lahaa adigiba hadda ku noqonaysa dadku waxay rabaan ha ku dhahan laakiin inta muhiimadda kala bax ka soo waxaad sheegtay dadka inay ku dhahan ninkan waa curiyaan ma wadi karo ma rabnaa noloshana halis ku gelino marka aad dadka aad ka dhiga adeegtoodan hadalkooda dhig la qosin oo ka sii socoto oo adeegii ama gaarigi meesha rabtay meeshay rabeen aad u geyso oo aaminaan gaariga markuu safar ku dhamaado ka degto maxay dhahan ayaga jawaab nacmad kala kulanta hadana qofkan hadee inuu yahay qof aqoontiisa ku kalsoon oo aqoontiisa dadka ku meel marin kara marka ayadana wixii aqoon u leh inuu yahay qofku taasa muhiimadda ay tahay wixii inaad marka aad aqoon u leedahay baa fiican horta waxaan ayada qabanayso horta marka ayada waa inaad qaabka aad u qabanaysid iyo marka aad qabanaysid marka ayada wixii aqoon aad u sii leedahay meesha aad markaad geesto marka way ku riyaaqaan way ku mahadceliyaan way mahadceliyaan marka hadana dadka gelin dheeraad bay u siiyaan dadka inaan aan sii shaqeysto hawsheeda aan sii wato hadana aan meel aan u fariisanin wayna ku mahadsan yihiin sifo aan wax badan uga ogaado sida qof curiyaan gacmaha ka ah uu ugu shaqaysan karo xirfad darawalnimo gaari oo aan wada ognahay qaybta ugu muhiimsan ee isteerinka inay u baahan tahay gacmo awood leh ayaa waxaan gacmo la raacay gaari yar aniga oo cabsanaya. Let's go. تمام goormaad bilowday inaad darawal noqoto oo gaari wado sanadii 2016 yaa ku bar markaa ka saaciday inaad gaari barato maxaana kugu abuuray fikir ahaan yaa maxaa kugu abuuray inaad gaari wado gaari waxay ugu abuuray inaan gaari wado aniga oo dhalinyaro ah oo shaqo haysanay meeshaan ka shaqo ma lahan anoo arday ah oo iskool taban bilaabay haddana fikrad maxay ku dhalatay anigoo iskoolkayga wata inaan shaqaysto marka kirishweynina ka soo bilaabay kirishweynina saan kirishweynu ahaa waa kana hadda darawal baan noqday waa anigaas gaariga wada ma jirtaa marka wax dhibaatooyin oo ama carqalada ka soo gaaray intaad baranaysay ama intaad ku guda jirtay xirfadaada darawalnimo ma jirtaa wallahi wax iga soo gaaray way badan yihiin laakiin saas oo maxaa kugu dhiban oo hadda ka xasuusataa waxaan ka xasuustaa anagoo maalin baabuurka baasitaan ay tahay qofka tookada ku hormaro oo birimo uu leeyahay yaa baabuurka naga daba imaaday haadka dambeeta haystay haadka dambeeta ay soo go'day muddo saaq gaarigana fayf buu ku socday muddaha saaq kale tabaan ku socday baabuurka hoostiisa bireeg uma sii qaban anoo dhaawacay ama shaqadayda sii wato bireeg uma sii qabanina waa iska shaqaystay gacmo ayaa ii sheegay in caqabada ugu weyn ee shaqadiisu ay tahay inay dadka aaminsaneen inuu wax qabsan karo maadaama uu curyaan yahay. Saa ognahay dadka curyaamiinta ah waxaa jiro yarafuqoob ay bulshada kala kulmaan ama dadka kala kulmaan adiga shacabkaad ku dhex nooshahay qaab noocmaad kala kulantaa ama sidee wala dhaqmaa waa jirtaa fooqaas qofka in la yiraahdo qofkan waa curyaan oo waxba ma qabsan karo oo bulshada ay siyaabo kala duwan ay uga dhaqanto waa jirtaa laakiin anagu waxa iyada ma sii fiiriyo anagu marka aan shakhsi ahaantayda aan iska hadlo qofkaas waxa uu ku hadlayo waa dhageystaa dhagtala kuma sii mashquulo qofkaas asaga baa habsan noqonahay marka adiga hadii aad ku sii mashquusho adiga baa habsan ku galahay
marka waxyaabaha noocaas oo kale marka aniga ma sii fiiriyo oo ma sii daneeyo marka qofku wuxuu rabaa iska jiraaho marka dadka qaarna way jiraan oo boqolkiiba 90 dad ay dhahayeen qofkan waa curyaan oo marka ayada Soomaali hadii aan nahay qofka curyaanka ama meel hadii uu leeyahay ama lug hala aado ama il hala aado ama gacan hala aado dadku waxay dhahaan qofkan waa curyaan waxba marka kasta asaga wuxuu u baahan yahay in asaga la hogaamiyo ama la hago marka taa ayada ma aaminsan aniga marka taa ayada maxaan leeyahay wajirta bulshada marka waxyaabo kala duwan siyaabo noocaas oo kale tahay inay dadka ay kula dhaqmaan laakiin aniga waa uma sii danayo oo ma sii fiiriyo marka waa dhigeystaa marka waxyaabaha noocaas waa iska dhigeystaa waa fiiriyaa marka fiyuuska kala bax ka soco marka hadii danina adiga ka soco oo iskuma mashquuliyo qofka muxuu ku lahaa iyo hadii aad tiraahdo adiga habsan ku galaayo marka haasi raacin adiga marka aad waxaad ii sheegtay inaadan qof isdhiiba ahayn qof aad u shaqaysto laftiisa waxbarashada ku jiro hami inta la egbaad aan dhihi karnaa gacmo uu leeyahay wallahi maxaan ku leeyahay hamigaaga marka adiga hadii aad isdhiibto adiga aad isdhiibto aad tiraahdo bas weeyo waxaan aad iska niyadsiiso aad tiraahdo waxbarashada heer kuma gaar kartid gacmaha wax kuma qabsan kartid waxaas ma qaban kartid aad tiraahdo dee adigiiba dhulka isdhigayo niyaddeeda iska sii dilaysaa marka wax walba ka ku saabsan qadabta ka hormaata inaad ka gudbi karto hadda waxaad rajeynaysaa marka hamiga mustaqbalka maxaa ku rajaweynta inaad qabsato maanta oo aad dadkana hadda dadku way yaabayeen oo nin shaqaysanayo gacmo la yaabayeen laakiin waxa ka sii qurux badan markaad wax kale horumar kale sii gaarto aad ayana u sii yaabay nin gacmaaga waa rajeynayaa mustaqbalkayga iyo horumarkayga inaan horay aan u sii wada xataa aqoonsiga aan ku faa'iideeyo oo shaqadeedana aan nin horumar ka gaara aan noqdo insha Allah marjeynaysa marka maadaama qof Curyaan aad tahay dadka Curyaaniinta inaad caawiso adiga fikirkaas ma kugu dhashaa ilaa maadaama aad aragtay dhibaatadeeda oo dadka qaarkood adiga soo aadan dhibaatada ahaan aad u arkin laakiin dadka ay ku macnaha ku xisaabinayaan qof Curyaan ahaan hadaladooda waxaad maqashay marjeynaysa dadka inaad Curyaaniinta ama aad caawiso oo aad ama training aad u samayso oo niyad u dhiso dhahdo hay isdhiibina Curyaannimada ma ahan inaad awoodin wax ما رجينا فكرة نوعاس مخوضة شاء ما كفكرة مرة أركض هذه نوعاس أو ضد جميع كلا دوينهم وسي كلا لسان كوا وحشر برالس كوا وحشر أن جارج عن بسكيل قصة كوا وحشر أن لها دعنت الله هي كوا وحشر أن لها هي مرك أن ضد طار جميع كده ضد كوا يرجلين إن لسيه أباهن يكوا أيك dhiirigelin dadka siiyaan marka kuwaas ayaga marka waxaan leeyahay marka in la dhiirigeliyo oo hore loo wado oo mustaqbalkooda iyo tiinkooda niyadda aan laga sii gelinin marka oo marka la dhiirigeliyo oo wax walba inay qabsan karaan oo dad adiga iyo qofkaas ee dhexdiisa la xaad qaba iyo adiga ilaahay idin kala socon sida ay wax qabsan hayaan taas ilaahay awood basiga ku xiran tahay marka niyadda inaan laga sii jabinin marka dadkaas Curyaamintu way kala duwan yihiin marka sidaas ayada marka hada horumar sameeyso nolosh horumarka ka soo darjeenaysa inaad wax u qabato insha Allah waxyaabaha kale ee caadiga ah dadku waxay isweydiin karaan gacmo yaa u labiso sidoo muxuu ku kala isweydiin karaan alxamdulillah musqusha waxay dhiga malahan dharkii baan ku dharkii waa kaasa hadda gacmaheedii wax walba ku qabsanaya musqusha baan ku galahayaa dharkii baan ku dhaqanahayaa waa ku qabaysanahayaa waan ku seexaasoonahayaa waxa aan qabanaysid oo dhan baan kula qabanahayaa marka alxamdulillah ma aaminsan inay maanta ay wax iga maqan yihiin marka maxaa ma arkaa gacmahan dheerba inay yihiin boqolays gacmaha yara ka waay alxamdulillah xariis ilaahay ba ay batayba ayadoo taas wixii aan qabanaysaa dib aan kula qabanahayo bawrka daawadaysid hadii aad mashquul adelaysid hadii aad dhaqanaysid hadii aad cunto cunaysid hadii aad qabaysanaysid intiiba aan kula qabanahayo gacmahayga ay gaagaabnaadeen laakiin waxa ma aaminsanahay gacmaha dheerba inay culeysiyeen taana ay naxariis ilaahay ay tahay gacmaha gaagaaban culeys ilaahay iga raba inay batahayba gacmo ayaa sidoo kale ii sheegay inuu leeyahay xirfad labaad taasoo ah dabaasha wuxuuna iigu goodiyay inuu iga rayn doono haddii aan galno tartan dhanka dabaasha ah dabaasha aad iyo aad waan aqaanaa dabaasha anigoo marka ayada ku soo tabaalbashay baraagahan loo isticmaalay wadankeena sadde baraagaha waxaa la isticmaalaa biyaha oo la qodo oo baraagaha baan ku soo tabaalbashay
marka dabaalka seeta waan garanayaa marka waxaan isoo dabaal baran wiil walaalkay oo da'dii aniga iga weyneyd ah khayr Allah siiyo qaybta ugu badan dabaasha waxa ku jirta gacan saar oo ah dabaasha aad Soomaalida u taqaan oo inay gacanta lagu dabaasho ah marka ma xirfad kale oo isticmaashaa jirto mise gacan saarka laftigeeda gacmaha ku isticmaashaa waa gacan saari kartaa waa gacan saara oo gacmaha la furkooda waa ku dabaasha anigoo haddana inta badan meelaha qatarka ah kaga dabaasha sheego oo markaas gacmaha marka aan dhaw macnaha oo markaas kaga ma bixi karta biyahan awoodooda way ku reebanaysaa ama markaas meelaha ila qahayo kale taan uga baxo sheego oo markaas aan isticmaalo lugaha oo saan iskaga reebayo iyo sheegada markaas ayada hadda meeshan joogno waxay leedahay meel war ama ay dhahan lag biyo galeen diyaar ma tahay aniga aad ugu raasanta dabaal diyaar ma tahay aad anigoo marka tan waxba uma arkaba ayada oo bad iyo baraaga ka weyn oo qatar ah ku soo dabaalanay tan ayada waxba uma arkaba taa ayada ee dabaasheeda hadii xataa ila qayso waxa ma oo arkaba anigoo si raaxala socdaalba ku dhaxmarayo mool way ku laqirtaa moolkaas ay tahay ayaan xataa ka soo badbaadinaa dad markaas ayada ay la qaday maalin dhaweyto markii aan tariifka hadda ugu dambeeyay aniga warta ay laqday dadka wax ka soo badbaadiyay baan ku jiray oo warta aan kula dhex jiray oo soo badbaadiyay ninkaas ee moolka meesha uu marka uu ku dhintay raadinayay oo wax ka soo bixiyay aniga dabaashan alxamdulillah markaas kalsoonidayda waan ku kalsoonahay marka wax walba aan qabanahay marka waxaan kalsoonahay inaan qaban karo aniga dabaashan ku jira tartankaas maxad ka filaysaa hadaan tartan galnaa inaan ku guuleysan doono waa kan anigoo mar kale waqti la qaadanayo gacmo oo qabsanaya hawl maalmeedkiisa daruuriga ah marka xaqiiqda dhan confidence ga dhantaas waa
marka aan ku weydiinaa ilaa goormeed bilowday dhaqitaanka ilaa intaan ka qaan gaaray ilaa iyo hadda aniga arkayga marka inaan aniga aan dhaqdo kalsoona marka qof kale qofmaba aanan qabo macnaha inay wasaqda iga baxayso marka anaa dhaqdo sidaa darteed ayadoo aanan dadka ay leeyihiin amada gabdhaha ay leeyihiin aan ku dhaqo baan ogolan aniga baan ku kalsoon inaan aniga aan dhaqdo loo kalsooniyo dadka ay ii dhaqanayaan macnaha inay wasaq ay ka baxayso marka waa ka alxamdulilah hadda waa aragtaa waxaa meesha ku waran anaa dhaqay haddana kan waa aragtaa waa dadkii ugu dambeeyey marka waxaan rabaa inaan ku labisto marka waa ka gacmo horey waxay igu sheegtay inaad adiga dharkaada dhaqatid maantana waa kana dharkaada dhaqanaysaa marka ilaa goormeed dharkaada dhaqanaysood bilowday inaad dharkaada adiga dhaqato inaan dhaqanayo ilaa iyo hadda alxamdulilah waxba kuma qabo waa kana hadda waa arkaysi oo aan dhaqahayo waa kaas anigu muujinayay aniga sida isku laga rogayay waa kaas waxba marka dhibaato ma lahan alxamdulilah dadka kale marka oo familka iyo inay ku dhaqaan soo marka qaarkood kuma dhahan aan ku dhaqan ha marka kuma kasto marka inaan aniga aan dhaqtaa baa ka jeclahay macnaha maxaa ma aaminsanahay macnaha inay soo wasaqayga iga baxeen oo aniga inaan dhaqdo aan ku kalsoonahay marka wax saameyn ama dhibaato ama ay ku geysataa malahan xoogaa jira maaragtay daal aan ka ahay marka alxamdulilah dadka dhaqitaanka gacmo wuxuu ka mid yahay waxyaabaha gacmaha lagu qabto oo gacanta awoodeeda u baahan marka dadka aan aaminsanayn inay gacmahooda wax ku qaban karin oo ka dhadhacsan tahay inaysan waxba qabsan karin maxaad leedahay hadda qof aan rabin weeye inuu wax qabsado gacmaha ma aha wax laga qabto macnaha qalbiga wax laga qabtaa gacmahana marka waxaa waaye gacmaha soo marka qalbiga niyad ahaan uu qofka wax u qabsadaa marka niyadiisa haddii uu qalbigiisa uu yahay inuu wax qabsado u talabo waxuu qabsan karaa dandaaran ahaan adiga maxaa siinay dandaaran maxaa siinay niyada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed inay wax qabsan karaan wax walba isku dayaan inay qabsadaan kala qabtaa shukaansigiisa isku tiina haasawaha waan dareemayaa dharkaaga inuu dhaqanaysid labiskaaga u badan yahay bal haasawaha dumarka dhankooda say isku tiin dumarka xaggooda waana iskuma yeelata in xoogaa macnaha waa gelin kara adiga yaa adiga oogaa marka sida dhaydananka geeliga looma dhamo jacaylko ma dhaashto caashaqa dhayan ha u malay dhuuxa iyo lafaha iyo waa wax dhiiga kaa jira caafimaadka kaa jira waadba waxaad u ogtaa nin kusoo gubtay arrimahaas iyo shukaansiga hablaha weliba isku daday gacmada gursato gudub jiraa inkastoo calafka u dhiman yahay marka insha allah rajaynaysa in caruur iyo aad iyo aad aan rajaynayaa waana ku tala jiraa marka insha allah waqti ilaahay oo aqbalo oo waqtigeeda uu ka dhigo ayaan arkaynaa inta kale dadaal un waayo waxaan wadno hadda suraalkan wuxuu u egyahay suraaladii labiska iyo shukaansiga ها مرة قارت أنا وأنا تام بحي الديان أبدا من الهدية أها كتورتها هاي سفارة فولا حكمة يسمى أهل ساندريمية